أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walaalayaal waxaynu baraarujin lahayd baryahan dambe mushkilad ka socota caalamka islaamka oo aynay tanaasuleen in badan oo ka mid ah siiba wadamadii carabta iyo khaliijka oo ay ka tanaasuleen muqaddasaadkoodii oo ay iskala xidheen yuhuuddii oo la keenay wax la yidhaahdo الدين الإبراهيمي الجديد، دين لو بحيي دين عصوبة ولدتك اللو حييسين أيو والله إلا دين تي نبي إبراهيم. حديث كنا عاصا أداد الله يابسان تالا لا إنك محاينك خسائية وحباك خسائية وحوي ومدى إسلامكو دين إسلامكو يكرد حيسا مقدسات كنو كرد حيا ilaalintooda la ilaaliyo waajib bay naga wada saaran. dadka qaarkood baa laga yaabaa inay u haystaan carabtu inay diinta inoo matalaan, tallaabada carabta ay u arkaan inay diin tahay ama laguba dayan karaba. waxaabaan maqlayay xildhibaanadeenna qaar ka mid ahoo leh carabtuba yuhuudda way la xidheena innaguna aan la xidhanno. waxay naga khuseeya hankeennu inuu gaadhsiisnaado han caalamiya inuu noqdo. ummadaha walaalaheena haddaynaan waxu tari karaynin inaad ka xumaato wixii haystee dhiba, inaad u ducayso, mowqif wanaagsan iyo go-aan saxa inaad qaadato si aad ilaahay uga badbaaddo subxaanahu wa tacaala. arrintaa markaynu ka hadlayno dhowr arrimood baynu xusi doonnaa. ta u horraysaa waxa weeye diintan gaaladu hadda ay xayeysiinayeen yuhuudda iyo reer galbeedku ee la yidhi waxaa lagaga maarmayaa diimihii kale wakhtigay soo bilaabantay, maxaa se looga jeedaa, maxaa loo adeegsadaa, khatarse maxay leedahay. saddexdaa qodob ayaynu isku wacyigelin doonaa, iyadaynu ognahay adduunyadii maanta in masalo keliya lagu wada fadhiyo asbaxad gurfatan waaxida ay noqotay maqsin keliyahoo la iswada arkayo o la iswada gaadhayo. diintan la leeyahy waa diintii nebi ibraahim oo waa la xayeysiinayaa oo waxaa lagu midaynayaa saddexdii diimood yuhuudiyadda, kiristanka iyo islaamka. waxay soo bilaabantay wixii 2000 ka dambeeyey. fikraddaa iyada ah sirta ku jirtaa waxay tahay waa qodobka labaade in la lumiyo tadyiicu lmuqadasaat, muqadasaadka in faraha laga qaado oo la yidhaahdo wuxuuba waa isku mid, waa saddex diimood oo ilaahay ka wada yimi, ilaah keliyun baana la wada caabudaya, maxaaba la isu haystaaba. qudus saddexdeenuba waynu wada leenahaye kuwa imika ayabaha loo daayo waa tahwiid qudus in la yuhuudiyeeyo la yidhaha kuwa imikaba ha iska joogaan si kuwa kalena ugu cibaadaystaan, iyadoo aynu ogsoonnahay inay ahayd qibladii dadka muslimiinta ah ee hore. qur-aankana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga hadlay siduu u karaameeyey goobtii nebi maxamed lagu casuumay inay ahayd sala allahu calayhi wasalam. markuu nebigu khasawaadkiisa iyo futuuxaadkiisa iyo dagaaladiisa uu sii wada yurub uu ku wadayna meeluhu ku jahaysnaa bay ka mid ahay inuu qudus xoreeyo, laakiin ilaahay wuxuu ku guuleeyey cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu iyo muslimiintii la socotay. markii dambe haddana saliibiyiintu dib ay u qabsadeen nimankii macatabku dirirka ahaa, ilaahay wuxuu ku guuleeyey salaaxuddiin alayuubi. weligoodba way tamaniyayeen yuhuuddu inay qabsadaana waxay odhan jireen haykal sulaymaani ayaa halkaa ka samaysan. nasaaraduna waxay odhan jireen waa meeshii ciise uu ku dhashay kuna soo degi doono. arrinta sirta labaadee ku jirtaa waxa weeye altadbiicu maca alyahuud watasallufu ilayhim wa khaasatan xukaamu bacdi adduwal alcarabiya. in yuhuudda la isku arjiskareeyo la isku dhoweeyo oo lala saaxiibo oo ay isleeyihiin malaha hoggaamintii caalamkay hadda door weyn ku leeyihin, markaasi ay idinku kordhiyaan magac iyo manfac iyo mansab. bal hadda yuhuud maanta ka ag dhowaada maadaama yurub iyo maraykan xambaarsan yihin.
kuraasta baadilka ku fadhidaana muslimka ka haysataana ay idinku xejin karaan sidaa daraaddeed yuhuudduna markay heshiis wada gaadhaanba wax kale ay ku sii daraan hadda markii qudus loo daayay waxay ku hamiyayaan waxay odhan jireen israa'iil alkubraa israa'iiltii weynayd oo ay ku sheegaan inay min anniili ila furaat ka bilaabmayso niil oo masara ilaa furaad oo ciraaqa maraykankuna hadda wuxuu la hadal hayaa inuu idhaahdo turkiyana way ku jirtee ku darsada waxay bilaabeen iminkoo daraasadahooda baarlamanka laga ansixinayo ku soo jira sida macluumaadka qorani ay sheegayaan inay u qaybiyeen dowladaha islaamka magdhow ay weydiinayaan dowlad heblaaye intaasaanu magdhow ka rabnaa dowlad heblaayena intaa markay tii hore u hirgeliyeen taasay soo bilaabeen maalan sacuudiga oo kale waxaanu ka rabnaaba inaan 100 milyan oo dollar 100 bilyan macnaa 100,000 milyan oo dollar waxay xoolahaasi naga lumeen ama dadkaasina laga dilay laga soo bilaabo waqtigii nebi maxamed bay dhahay sala allahu calayhi wasalam dagaaladii khaybar iyo bani qurayda iyo ila sacuudi arabiya ku yaaleen dowladihiinuna waa isku mid idinkii aabbayaashiinba iyo rasuulladiinuba wixii naga disheen hadda waanu rabnaa kula dacagteeda hoosteeda ku jirtaan waa deymaha iminka la hadal haya loo qaybinayo sidii ay jarmalkaba dee uga codsan jireen dad buu naga laayay deyntoodii dadkanina waxay moodayaan ballan iyo cahdi ay la galaan yuhuudi inay ku joogayaan ilaahay baa aada uga warramay ballanta yuhuuddu inaan ahayn mid la isku hadlayo lagu xisaabtamo aw kullamaa caahaduu cahda nabadahu fariiqun minhum bal aktaruhum laa yu'minuun ballan kastay galaan dabaday ka tuuraan buu ilaahay maqaaladoodu waxay laysa calaynaa fi lummiyiina sabiil ummadaha annaga naga soo hadhay waxooda haddaanu qaadanno waddana lagu ciqaabo na lagu cadaabaaba ma jirto waa noo xalaal qur-aankaabay noo sheegayba arrinta afraada ku jirtaa waxa weeye diin alibraahimiyo la wadwado iyo isku dhoweynta yuhuudda tabdiilu diin alxaniif alislaami asaxiixi wa tamyiicu diinteenna islaamka ay dadku ku dhegayn in laga durkiyo iyo xejisashadeedii oo dad badan oo caamaabaa la helayaa carooga xukuumadaha xoogga badan ay afuufayaan dad baa dhegaysta dabeetana ummaddu diintooda say ugu noolaayeen iyo siday u difaacayeen iyo say ugu adkaayeen dad baaba laga yaabaaba inay yidhaahdaan dee halkanaabay ka soo dhowaatee maynu waxaa la sheegayaba rumaysanno ilaahayna subxaanahu wa tacaala aada buu uga digay rasuulkuna aada buu uga digay arrimahaasoo kale alla wuxuu uhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina sanadkii ugu dambeeyey nebigu xajay markuu ummadda sagootiyey aayaddaasaa ilaahay uu ku soo dejiyey ilaahay uu leeyahy diintiinni baan idin dhammaystiray waa nicmadii islaamkaasoo quraanaan raalli uga noqday dadku inay ku dhaqmaan diin kale maya nebi ibraahim oo ay ka been abuurteenna ilaahay arrinkiisa uu ka warramo wuxuu uhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin waxba yay ku xoqanin gaaladu nebi ibraahim mushrigna mu ahayn yuhuudina mu ahayn muslim buu ahaa xaniifa oo diinta islaamka dadka ku horkacaya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ummadda aada buu wacdiyey mustaqbalkoodu uga warramay khudbad qiiro leba u jeediyey dardaarankanaa ku jiray calaykum bisunnatii wa sunnati alkhalafaa'i araashidiin caduu calayha binawaaji waxbaa soo duulduulayo soo socdee diintayda iyo sunnadayda haysta oo gowska ku qaniina buu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrintan iyada ah marka la wadwado waxaa looga jeedaa arrinta shanaada tadyiicu xaqi alfilistiiniyiin wa takhdiiruhum wa tahjiiruhum ummaddii walaalaheen ahaa ee dalkaa deganaa ee muqadasaadka muslimiinta u ilaalinaya falastiin ee shalayta laga qabsaday meesha muddo kooban oo sannada iminka laga joogo 10 sannadood in meeshaba laga dareeriyo guryahoodiina la dumiyo takhdiilna lagu sameeyo la hoojiyo qadiyadda iyadu waa falastiin bay odhan jireen carabi maxaa naga galay bay leeyihin iminka falastiin iyaga u taallaayo way gardarayn bay leeyihin qaarkoodna ilaahay baa isagoo ka warramaya muslimiinta marka qola dhib qabsato waxa uu wayn istansarukum fi diini fa calaykum an-nasr haddii walaalihiin qayb ka mida dhibaata qabsatay gurmadiiyo gargaar idin weydiistaan fa calaykum an-nasr waxaa idinku waajiba buu ilahay yidhi nasr wixii loo dagaalamaya wuxuu ahaa dadka muslimiinta in la dulmiyo dalkooda iyo dadkooda la qabsado oo la laayo lagu xadgudbo
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلهي بقى وحده سبحانه وتعالى وحا الله قال هذا ددك مسلمين تينا يدقالمان ما دام لدلميي هداو هيلو ويدان إلهي نصر قودا واكراه وحا ربي وحسي وحيابها جهادك ددك لوغو واجبين كميتي مركا دلكاغا إيا دنيا دا إيا ددكاغا لغا دلميي لغا قادو إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون dadka muslimiinta dulmiyay dalkooda ka qaaday ee iyaga qaxiyay ina xiriir la yeelataan iyo gacaltooyo dadka saasmay waa dhaalimiin buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu ogsoonahay ummadda islaamka waxay noo sii muuqdaa wadamadii sida kuweenan u camirnaa islaamka talinaya laga faramarojiyay sida Philippine iyo Burma iyo Andalus oo imika Spain ay la baxeen Afrikada dhexe iyo meelo kale markaad yara tanaasusho wadankaasi uu ku deynaya mid kale ku deynaya sida horaba aynu soo sheegnay marka Qudus iyo Falastiin iyo looga hadh ardu Shaam waxay oranayaan waxaanu deganaan jirnay Madiina beeraha iyaga way sii muuqdaan Nabi Maxamed baa naga eriyay Sacuudiga waa ku haysanaa masaajidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga ku aasan yahay ahdaafta iyo ujeedooyinka ka leeyahay waxa kamid ah tafriiq umma وشق صفوفهم ومدى إسلام كان قيبيان عدة كاهر جيدة إلى قيبي سود اسكو جيدة كما أتكاتي وحيابا مدى إسلام كوا يكوكو الإسلام بو كمي دها ودا جيركو ويمري وايان قالدو يهودية نصارى وحيابا يكوكو الإسلام وحا كمي دها قيبيو قبائل الله قيبيو حدودية وضم الله قيبيو آد بو إلهينا وقدقيا انتا آيادات با تفرقية كالتاق مسلم كدقت ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم كويس خلافوك لها لم يدنقنين باقي الهول أراح لك شبه دينتي اسكت ديدي عذاب وين بايد كل عدارة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نبي محمد هذا كم يدمي كما جرتي كويس خلافه دينتو دي كلا تجي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الله وحو الله سبحانه وتعالى هاي خلافنا وها مرمنا دينتنا نحجستا تدكينا نورورية واصبروا إن الله مع الصابرين صبر وعادة وقد دفاعي سكو صبر إلهي سبحانه وتعالى إذن بربر تاغنا مركا وحا الله إلهي خلافك إياك لا تقو وحاو تكسيابو لهي الريح وأود أمضو أي لاذا أي شيء يسكي عابي كرتين لغاها يبدا يسنكرون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون دينتي نوطع ومتكليا أنا قلنا إلهي إني كلي هابانا أنا قلنا عابودا ماذا إسنادا ورسنادا انت آيات كور رميسا أمة إسلام إناني مبرر إيا السبب هاي سنيني كالكعاني كالتقا وشيدوين كمركا لقال لي الدين عصبا للسمين يوا يهودي اللوهي ليو زاين هربا وصارقني مقدسات كي قوابه قيمة بدانا مسلم كلا فرفري هوسوسي سعلان ما محي مركا waa maxay aalada loo isticmaalo iyo wadooyinka loo marayo arrimaha aynu soo sheegnay diinta cusub ee la xayeysiinayo diinta islaamka lagu baabiinayo waxa loo marayaa aljamcu bayna rijaal diin wa siyaasa li ya'malu ma'an wa li yusallu ma'an illa kulmiya ragii siyaasadda hogaamin jiray ragii diinta waa arkaysa siyaasiyiintii arrintan gorfaynaya iyo wadaadadii diintoo la soo ururiyay kuwii kristanka kuwii yahuuda kuwii muslimiinta isu imanaya oo kulama qabanaya oo oranaya siraacaadkii iyo mushkiladii baa dadka ku badatay iyo khilaafaadkii si loo heshiisiyo ummaddu Ilaahay bay adooma u wada yihiin bal la soo wada fariisto ukhuwada iyo insaaniyada loo ilaaliyo walaaltinimada iyo insaaniyada la ilaalinayo islaamkuna waxba kama qabo والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودي مدينة لهشي وآيات سورة الممتحنة كسوغان كوا هراء صوت دليشانيا كوا دنبنا ويكتغيا كوا هراء شيغيا والله معاملة والله وناتشين كرايا عدالة قالة لكن مركا إذن دولميان مايا قيبت هرانا ولا قادنا يا قيبت دنبنا ولا قتغيا وارهمان الله استعمالي كميتهاي فرسموين كاس
iyo in loo qiil dayo waxyaabaha loo isticmaalayo waxaa ka mid a waddadaa loo maraya maa yusamaa biusari salaam jamaacaatun tantashiru fii kaafati duwal usaru salaam qoysaska badbaadada waa kooxaa la isu geynayaa kala duduwan oo dowlad walba ku jiro dhaqaalahooda lahoo sheeyuhu maalgelinayo la yidhaahdo waa qoysaska badbaadada ama saaxiibada nabadgelyada ka shaqeeya waxaa saddexaad oo waddooyinka loo maraya ka mid a albaxthu alcilmi almustamir almushtarak wa icaadatu qiraa'ati الnusuus الdiiniya in meelahan akaademiyada jaamacadaha iyo daraasadaha iyo lagu sameeyo arrimahan aada loogu baadho oo la yidhaahdo bal ha la iska kaashado muslim iyo ummadaha kaleba sidii loo sharxi lahaa nusuustan iyo daliilkan oo loo fahmi lahaa loo casriyeyn lahaa jaamacadaha horseedka ka arrimaha waxaa ka mid a maraykanka ku taala la yidhaha harford oo waxay leeyihiin albaxthu ina albaxtha lisalaam alcaalami madkhaluhu alasaas huwa istiqraar alsharqi alawsat daraasadaha waxaa loo samaynayaa adduunyadu si ay u degto nabad loo helo mushkiladiisa waxa u asalaa bariga dhexe saa daraaddeed mushkiladda bariga dhexe waa in la dejiyaa oo khilaafka laga saaraayo dadka joogo o dhan la walaaleeyaa daraasaddu caynkaasee u socotaa yuhuudda loo daayaabay isugu biishubanaysa meesha afraada loo marayaa waxa weeye alumam almutaxida qaramada midoobay oo aynu ogsoonnahay qola inay iska leedahay oo waxay leeyihin rabdu hadihi alfikra biahdaaf altanmiya limukaafaxati alfaqri cabra alxiwaar waxay yidhaahdeen marka la doonayo adduunyada in faqrigiiba ayna hadheeyo dhib inagu keenay iyo khilaafaada lasoo yareeyo meel kastoo muran ka jiro ha la soo afjaro madiin cusub baa keenteenoo dadkao dhan ku walaaloobayaan xoojinay weliba waxyaabaha iska sii warramaan waxaa ka mid ah adduunyadu waa laba nusuun nus waxa weeye jayna iyo hindiya way iska degayin balaaya kama jirto laakiin nuska kale ee balaayadu ka taagan tahay waa saddexdan diimood dadka haysta reer yuhuudeed iyo kristan iyo muslim marka nuskaa kale mushkiladooda haddii la walaaleeyo adduunkuba muranka wuu ka baxayaa iyo faqriga iyo qaxootigu marka saddexdiinnan haddii ay isu tagteen idiin ogolaanay waxoo dhamina waxay isugu biyo shubanayaan in yuhuud loo adeego waxaa ka mid oo shanaad meelaha loo maraya alquwa alcudma almucaskaru algarbi khaasa awoodaha waaweyn ee ay u horeeyaan reer galbeedku ayaa kow ka ahoo xambaarsan 2013 waxay asaaseen dowladda maraykanku fariiq ama koox 100 qofa oo ka shaqaynaya arrintaa oo kala badh ay rijaalu diin ragga diinta yihiin oo gaaliya islaam bay isugu jiraan waxa cajiiba dowladdan cusubi markii ay timina may bedelin iyadoo la ogsoon yahay labada xisbiya dimuqraadiga iyo jumhuurigu inay isku iriyaan oo kaa hore maamulkiisa ay wixii ay sameeyeen oo dhan bedelaan guddidaa may bedelin waayo wax ay doonayeen bay guddidaas kuwii hore iyo kuwa dambeba u shaqaynaysa sidii bay hawshii wadaa meelaha loo maraya waxaa ka mid ah iskaashiga dumarka in dumarada iyo shirarkooda iyo isfahamsiintooda iyo saaxiibadooda iyo la isu geeyo oo la yidhaahdo waa sabiilu lxuriyat sabiilu taxriir ilmara meelaha ay gabadhu ku xoroobaysaba weeye ruuxa dumarka ah khaasatan wadamadan lagu gumaystay carabta si ay uga soo baxaan guryaha iyo xijaabka iyo xorriyaddaba halkaa ka helaysaan waa halkaasi saaxiibtinimada ka qaybgala diimaha waxaa ka mid ah tawaasulu maca ashabaab biictibaarihim alasaas lilxaraka walmustaqbalu lahu iyo dhallinyaradiiyo baraha bulshada ku xidhan oo tacliintii garanaya oo adduunkii la socda in iyagana la yidhaahdo xorriyaddiin iyo mustaqbalkiinu halkan uu ku jiraa dibna u qixi maysaan faqrina arki maysaan iska wada walaalooba makhaatirta ama khatarta ku jirta saddex arrimood bay ku soo ururaysaa marka hore waxa weeyaan maraakisul cibaada ayaa waxaa loo bedelayaa maraakis diblomaasiya meelo siyaasaddaba laga hago masjidkii iyo xafiisyadii lagu mideeyo oo karaamadoodii ay waayaan muqadasaadku sidaa kaniisadaba arrimahan ugu hayno masjidkana dhib male howlaha waa lagu qaban karaa ee kaga hadla arrinta labaad oo diinteenna iyo manaahijteenna in wax laga bedelo oo manaahijta waxbarashada UNESCO marka ay soo guddiyaal u saarayaan inaguba ka mid un baynu nahay in dib loo eego meelihii diinta lagaga hadlayay oo wixii arrintan aan u adeegaynin sida jihaadka iyo ummadaha qaybsanoo gaaliya islaam u qaybsan iyo kaafir iyo waxaasoo dhan laga shaandheeyo
eray bixin kale loo sameeyo waanay socotaa arrinta ugu khatarsanina waxa weeyaan man hum asxaabu alxaqi alasli in la daraaseeyo la yidhaahdo khariidadda caalamka dib ha loo eego ha loo abtiriyo arrimaha iyo taariikhda oo horta sidee dalalka loo kala lahaa dabeetana waa adiga arkaya marar badan kolkaad dhegaysato dadka wax qora iyo kuwa meelaha ka hadlaya iyo carabtii qaar baa waxay leeyihiin meelahan imika aynu joogjoogno yuhuudda asal u ahaydba qur-aanka akhriya qudus waxaa asal u lahayd yuhuudda falastiiniintan shalay bay yimaadeen dowladoodu wax yar bay jirtay waa looga horreeyey meesha maxay dadka ugu qabsanayaan arrimihiiba markaa khariidadii caalamkaba waa la bedelayaa jihaadkii nebigu uu qaaday saxaabada goobihii la xoreeyey bal horta ayaa asal u aynu dib ugu noqonay dee annagaaba naga qaadeen maxaynu is leenahay haddaa marka wax badanoo noocaas haddii diintii lagaa qaado oo dalkii lagaa qaado oo dadkii lagaa qaado oo muqadasaadkii iyo meelihii aad ku cibaadaysanaysay lagaa xoreeyo iyadoo la isticmaalayo nidaam qaanuuniyahoo caalamiya maxaa kuu soo hadhaya idan markaa wuxuunaynu baraarujinaynaa ummadda soomaalidu kolley dhagahay wax ka dhegaystaan in badanoo ka midna casriga waxbay akhriyaan inay baraarugsanaadaanoo mawaaqifta ku habboon iyo macluumaadka saxda ah inay helaan wixii la gudbanna ay yeelaan iyaguna ay ka feejignaadaan cudurkaa faafaya allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaطila baطila warzuqna ijtinaabah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة